بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سبحان مهجر أنا مدحوينها دولة قبلات كجبلان أو سيد حرطة أي حلايشة أي بدي شعب كجبلان عطفة أساسيين كمان ومد الصومالية ملك استيجوكتان وإن سلام يا وحان إني تين قدي أنا دين شيء هبينك عن فديو هبينك ومجدي وتين قدان ماشي عن فديو عن بحنا ودنك كلوي جيت عن بعد inta geedad kale ku yaala oo iyagana ah maxal ah oo ku yaala anyway way idin salaamay horta ka raali ahaada boqolkiiba boqol life ka tirada badan balse waxa la yiraahday markaad rabtid xal rabtid wax walba waa in aad u istaagtaa oo xalka aad si lagu heli karo because qof maanta inta ilaa iyo 24 hours fadhiday baa ahay more than 24 hours. It's like now close to 30 hours now. Close to 30 hours baa fadhiyay 30 hours kaas aan fadhiyay علشان wax xal ah oo aan helay ma jirto waana waxa ay ragga Soomaaliyeed ku arkeen inay say doonaan inta yeelaan bilaa xal la'aanta ay madaxweyne ma tihid idabaan xasan sheekh waxaan ka bariyay ilaa maalinka inta imid oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta waa iga maqlaysay madaxweyne ma tihid ideh ismaaj bara way ka sahlan tahay inaad inta la ciqaabi lahaa la dhibaateyn lahaa علشان لا يقول عيار لها دد أنا شرف لهين أفر يلا بعتك ساعة دبعتين لهين حداد عيدا كي دولة إيه استعمال يسوع واحد هذا ملحوين متي مد الصومالي المخاطبة إيه قطعه عشان حالي إذا أما أفافر يالو أما أتكيس دم بيالو واحد يسوع شوابي not only إنا أنت أكو أكال تويتر هذا إذا أكو قري كل محل ده تاجري مدحوينها حفيز كيسة qof walba suubanay kuma oranayo madaxweynaha walaalin macna hawshaada iska wado wartaan hawshayda u wata ciidan military ah iyo ciidan nabad sugid ah oo federal ah baa iska hortaagay ani markaas military-ga ma haysan waxaan haystay nabad sugid iyo kuwii military waxba ka qabanayn markaas baa iska ashan ciidanka ma ahayn taliyaasha baa iska hortaagayo waxaad la socotaan inaan wax laga qabtay haba yaraatay jirin war haddaadan idhahaynin madaxweyne ma tihid oo shuruucdii dalka aadan علشان aadan inta la raaco aadan idhahi karin madaxweyne ma tihid la idaariyay magaaladii la igu daariyay iyo gobolkii la igu daariyay aan joogo ciidankii dawladda federaalka la ii isticmaalayo ilaaha idinku daariyay Soomaaliyeed haddana qof walba inta isoo wuxuu iga beegareynayaa al-shabaab la dirirayaa ee suuqanay aamus oo al-shabaab hadii la diray maxaa xalka diiday casho waxyaabaha yaabka kugu diyaay waxay tahay people waa ku soo wacayaan dadku waxay ku leeyeen walaalay wax waa la xalin doonaa way dhamaatay aniga ummad dal iyo dad baa u shaqeeya madaxweynaha ahay dadkayga inaan u shaqaystaan rabaa inaan wax u qabsadaan rabaa inaan horumar u keenaan rabaa hadii anigii علشان dadkii aan xukumay aanan kala hagi karin because of ciidankii federaalka oo corruption ciidankii ay sameynayaan shaqada aan qaban karayo waxa aan qaban karo maxay tahay beenta isku sheegayo it's nothing waxba ma taala meesha shalay wixii igu dhacay qof walba oo maanta ashan waxa la yaabaa war why waxaan oo kale intay dhacdo people get ashan ay normal dad ugu noqotaa because why xal baanan jirin xal waxaliya baanan jirin ragga qaarkood oo Soomaalida ah they don't know xal sharcigiina ma shaqeynayo مسؤوليتي قفكي أنا ما أنت هداي دعلة ملان مسؤول كأي واحد هداي دعلة والله يبالله يطلع إنيسن وين ده قادتين والله هنمر إنيسن وين ده قادتين مقرب إيه مقصد إلهي وما دهول صوماليا إيه إله أفريقيا اللي يسقط ما حكمه أفكار سوا على مقلع واحد هذا الحل واين مجبته فقال ألقى فقول شقة فرماتشا واي وحنكو إرادي فرماتشا شقة عديقة كومتال واي surrounding كاج privilege كدولة نمدا waxay tahay surrounding kaaga inay ku adeegaan oo ay wax xaliyaan people surrounding kaaga oo ku shaqeynaya inay wax ku xaliyaan oo magacaaga protect karaan oo dawladnimada protect karayaan oo waxa jira ay xaliyaan taas shaqaalaha dawladnimo علشان la hayr gareeyo ama agaasimayaha ahaadaan arrimaha gudaha ahaadaan siyaasadda ha ahaadaan amniga ha ahaadaan dawlad goboleedyada ha ahaadaan whatever happen wax kasta oo dhaca waxa xaliya dadka kula jooga marka بانت يا بروباغندا ور aniga say ku dhici kartaa ciidankii dawladda federaalka inaan amaan ka heli waayo
say ku dhici kartaa madaxweynaha dhaqaaleeni inta uu bixiyay oo uu siiyay Axmed Madoobe faraqa ugu shubay oo haddana ciidankii dawladda loo isticmaalayo uusan idhayn madaxweyne ma tihi uusan idhayn علشان literally madaxweynaha dagaal ma igula jiraa dawladda federaalka dagaal ma igula jirtaa nimankaana sameynaa ma oo ekaanayso maxaa yeelay nimankan hadday ka cabsanayaan dawladnimadii dalka ka cabsanayaan ma samaysmateen anigoo halkaa jooga oo si kasta maanta madaxweyne xasan sheekh waxaan doona u dhihi karaa baa haddana dawladnimada ka baqaa waay because sharciga inay qabtaan ka baqaa waa damiirkayga ii diiday waxyaabaha qaarkood aniga hadallada qaarkood waa dhahaa qofka kuma xadgudbo ilaa limidka aan hadda xasan sheekh waxaan ku tilmaamay qabiilista inuu yahay waa aaminay macaloosheeda laga bixin kara macayna maaha waa aaminay firi madaxweynihii inuu qabiilista yahay oo qabiil u dhaqmaayo ama qabiil uu aniga ii eriyanayo waa aaminay kus waxa aan dhimay oon maanta u dhimi kara xasan sheekh oo intaasoo dhibaataa iigu dhici karta ma fahmi karo in uu marka madaxweynihii qabiil igu eryanayo waan aaminay dad baa inta ku soo ku ornaa hadhihin saa maxay tahay haddaa aaminay waa in aaminay say ku dhacday ilaaha idinku dhaariyee walaalayaalo waa idin baryayaa hala iska daayay sheekada propagandada ah hala iska daayay in la dhaho waxaa la joogaa waqti shabaab lala dagaalamayo shabaab wax walba ma xirayso ma fahantay wax walba ma xirayso annaga shabaab la dagaalamayno oo meeshaan joogay hawbiyaasha leeyla soo dhacay excuse ma noqonayso mana xiraysa in saxda wax saxda laga hadlo waa in xal imaadaa haaw ay u dhici kartaa ilaa maalinkan magaaladan imid ilaa maanta in la iga celin la yahay ciidan la soo diraayo say ku dhici kartaa ii sheeg inta aan qariyay baa ka badan inta aan sheegay inta aan isleeyahay wax weyn ma aha oo wax ay kugu dhufan karaan iyo aggressive ma noqon rabaan waaba iska qariyaa waa isaga dhaqaaqaa laakiin marka aan dareemo these people inay aggressive yihiin the only wax aan iskaga difaaci karo waa inaan telefoonka shidaa the only wax aan iskaga difaaci karo waa inaan telefoonka shidaa telefoonka ku caddeeyaa maxaa yeelay 120 adoo taagan baa been lagaa nabanaya laaloon maxaa dhacdoonan wixii sheeganin marka ciidanka taliyaashii ciidanka inay saan sameeyaan yaa u soo ogolaaday yay ka haystaan maxaa la dhahaa amarka intaa la eg yay ka haystaan ama waxaa leeyahay hadda warfaa iyo waa la qaaday baalka aroontinkiisoo ila qaaday laakiin lacala kaa soo qaadba ila qaaday maxaa marka la qaadaya ma waxaa aniga u dhacay la ogaado marka lala hadlayo laleeyahay soo baxa ma aniga waxa igu dhacay la ogaado soomaalida waxyaabaha ay isku sheegaan waa been warseebay ku dhacday aniga nin baan shaqo ka qaaday oo iraahday shaqadiisiibu gudan waay waa ka qaaday in anigii in la ituso inaan naag ahayo nothing ahay la ituso oo ninkii inta la soo qabsaday awooddii dawladda dhaqaalihii dawladda wixii loo isticmaalayo lagu isticmaalo oo meesha la soo fadhiisisto dan yaa cadowga aad ii sheegaysaan oo kale shabaab ileedin adinka cadowga ay igu tiina aniga fol shabaab cadow waa u aqaanaa 100% waa u aqaanaa balse adinka maxaa idin aqoonsadaa ii sheeg in waxa aan idin aqoonsado in la yahandado in la ii soo qaato in la ii booto in qori inta la ii qabsado xabad la ii gashto in la ituuro war waxa igu soo dhacay neymid ma tirin karo mana iga haysa hadda inaan tiriyo xataa xasuusto on ka dacwooda iga hayso laakiin waxaa soo idil ay ciidankii dawladda oo federaalka ay iigu samayn karaan shakhsiyaad waay waa dhowr shakhsi oo la tirin karo waay waa dhowr waxaa samaynaya oo waa dhowr shakhsi oo la tirin karo yaa ka islaan taliyaasha waay Soomaaliyeed mise xal ma jirtaba waa inaa iska dhaqaaqaa la rabaa ilaa marka lagu soo waco lagu hadlayo lagu leeyahay saana jirto waa iska dhaqaaq ma dhaqaaqayo waxaan u dhaqaaqaynin waxay tahay waa qasab inay xal imaataa waa qasab in waxa dhacay ay xal imaataa waa qasab maxaa yeelay ciidankii dawladda waxa ay sameeyeen wax loo dul qaadan kara ma ahayn waa waxa halkaa ifadhiisiyay waa inaa ku fakartaa waay qofkani ilaa limidka yaadan xanaaqaysu banay yaadan qof wax ku dhufanin
weli lama sheegi karo qof inaan wax ku dhuftay markii inta la iga xanaajiyo si kasta la igu sameeyo never gacan ma qaadin never ever gacan ma qaadin waay waxuu qaadla ceeb tahay inaa qofkaas inaa wax ku dhufato oo calashaan adigii baa crimeka adaa criminal ah dembigii adiga aad ka cararaysaa adiga samaynaysaa marka maalin ilaahay keeno hadda meeshii aan fadhiyey miiskii baa laga qaatay cunug yaroo waxaa jooga kaa ilaahu aanan ka hadlin cunug yaroo waxaa jooga oonan harsanaynin hooyanayn hadda maanta waxaan lahaa haddaan sharci inaan qof xiran rabo noloshaydii qof haddaan inaan sharci ku xiran rabo cunugaasaa xiri lahaa maanta dhan alshan war qof dhan oo u taagan dhib inuu dadka dhibo u taagan mis hadda kuraastaan haddaan hadda ka dhaqaaqo oo meel galo wuu wada qaadanaa wuu wada xaraysanaa muxuu u wada xaraynayaa xumaan waxaan dhahaa wiilkan waxaan ka dareemaa bakaal siduu dareemayo hadduu faraxsan yahay cunugan waa faraxsan yahay hadduu ii xanaaqsan yahay waa ii xanaaqsan yahay wejiga bakaal baan wiilkan ka dareemaa bakaal waxa uu dareemayaan wiilkan ka dareemaa ilmaha bakaal la socda istaafka bakaal la socda wallaahi iyo bilaahi tallaahi wiilal ka akhlaaq badan oo ka wanaagsan oo ka maxal ixtiraam badan ma jirto never ever cunug aan maanta wax ka tirsanaayo hal mid oo waagi hore iga raalisiiyeyna never mar daba ma dhicin ninkani cunugani waa cambaha geedka yaa maalin walba maalin ku faraxsan yahayna maxaan kuu soo qaadaa madaxweyne maxaan kuu soo qaadaa hadalladu maalinkuu caraysan yahay oo uu la leeyahay naagta ceyrina waa cashar saxa la ii dhigaa cashar sax ah baa la ii dhigaa miiska qaado kuraasta qaado waxaan qaado hadda kuraas waxaa ooli jirtay hadda dhabarka dhan waa xanuunayaa because anigii idin tusay waagii kuraas waxaa ooli jirtay kuraasta xafiisyada ah baa ooli jirtay kuraasta xafiisyadaan ku fadhin jiray kuraastii xafiisyada la qaaday waxaa loo qaaday inaan kuraastaan inta ku daalo aan ka kaco dhaqso qof walba warfaa baan ku leh suubanay dadkaan iska daa waa ku jeedaa waxay samaynayaan see isaga daaya adigaaba ii soo raacay warfaaye warfaaga waa ninka militariga xukuma adigiibaaba hadda ii soo raacaye calse markasta waxaa undacin walaaw dadkaan maxaa ka khaldan walaaw dadkaan maxaa ka khaldan adigiibaaba ii soo raacay maxay tahay daa sideen marka ilaaha idinku dhaabiyee war soomaaliyey enerjigaygii dhaqaalahaygii waktigaygii ma ilmo yaraa uga cararaa iyo laba nin oo taliya ah ma calaashaan wixii aan qaban lahaa ila that's what the people saying iska daa iska yeel hala iska daayo hala iska sameeyo ma laba nin oo taliya ah ila waa warfaayo bakaale iyo kan hadda inta joogo ay idin sheegayo idin leeyahay cunuga yarko inta joogo maxaa lahaa immigration meesha joogo nabad sugid ah iyo ma waxaan u daayaa maxaa la oran jiray ma waxaan u daayaa afar saddex kaleeto ayagana dadka dhibaya miyaan shaqadan ummadda u haye uga cararaha ma uga carari karo laakiin yaa khaladkaas ay ka imaanaysaa xasan sheekh maxamuud waay xasan sheekh maxamuud uga imaanaysaa waay taliyaashiisii militariga iyo taliyihiisii nabad sugidda uga adkaan la'ayaa oo taliyaasha ay soo dirsadeen ay ula xisaabtami la'yihiin waay ay ula xisaabtami la'yihiin waxa ay samaynayaan iyo ku tagrifalka awoodda ay samaynayaan iyo inay qof dhan oo mas-uula oo madaxweynaha ayagii inay ka sarreeyaan camal ay u dhaqmaayaan oo anigii maalin ilaahay keeno wallaahi qof walba wahla weydi war meel kasta igu bahdilaan waa iska qaataa biko waxaa u qaataa suubanay shaqada aawadaa ka weyn way fahmi doonaanee sug shaqada aawadaa ka weyn waxa aa u socodaa ka weyn waxa aad raadinaysaa ka weyn iska daa qofka hadduusan caqliyaysanaynin uusan ku caqliyaysanaynin wixii calaashaan aad u taaganta uusan ku caqliyaysanayn maxaad samaynay iyo waraabal macaan maxaad samayn iisha seen marka ku aamusaa seen hore ugu socdaa I can't hore uma socon karo corruptionka intaa la eg musuq maasuqa intaa la eg war shalayto wixii aad samayseen maxaa u samayseen jawaabkaaga ma soo bixin karaan war ninkaan shaqadii aan ka qaadaa iri anaa madaxweyne la dhaariyey ah min jeclaysiga intaa la eg
aad qofki ninkii inta ula cararteen anigana igu bahdisheen albaabka iga xirateen say ku dhacday waxa ay ku dhacday sheega ma sheegi karaan in la iska socdaa la rabaa hore loo sii socdo si hore loogu socdaa musuqmaasuqa inta leega dhacay corruptionka inta leeg oo musuqmaasuqa dhacay saan hore ugu sii socdaa Soomaaliyeey waxa khaldanna waxaan dhahnaa khalad ma aha waxa saxsanna khalad baan dhahnaa waxa khaldanna sax baan dhahnaa that means annaga corrupted wada ah war qofkani fiiri sharciga iyo waxa saxda waa black and white ma qarsoona black and white way sida caanahaas u cad yahay nidaamka saxda ah sida mugdigu u madow yahay dambiga waa wax cad oo maanta aanan calashan aysan qarsoomi karin oo qofna aysan saa ku kaantay war aniga ninaan shaqadii ka qaaday anigana waa imaan baan ku iri aniga inaan banaanka igu celiso madaxweynaha ahaan ninkii aan shaqada ka qaado gudoomiyahayga ahaana aad soo gelisid aniga layla dagaalamo aad isla saxsan tahay say ku dhici kartaa عشان ها ماني أن دول قاتل تدخل حقيقة وان ودول قات وروحها أن كدول قاتل قف صوماليا أو كدول قاتل الله والله بالله يطلع إنه سنجر أنت أن كدول قاتل قف بني آدم أو دول قاتل الله إنه سنجر لكن وحيابا أن لو دول قاتل كن أو شقاء هاجرتا أو نظام دولة هاجرتا أو قف كان corruption كنوع عاصو كلا هدا وقع مستد دان رالي با واحد كتاي أصبر قلد مركا قبط واحد قبط بليون قلد وكله سوس على قبطي خلد مركز سيد ديسيدنا بليون خلد او ايمان لها باد سيد ديسي باد فسخلو البابك افرتay hada aniga u ogolaado warfaa inuu inta aan jeexo aan shaqadii ka qaaday inta soo fadhiisiyo anigiina iga dhiga baal inta la barbaryo la ikaxayo soo baxa qarsa jabkaaga maxaan jabka u qarsa dadku waxa ka maqan war isna jab iyo jab la'aan ma this is not personally ma is not me is about dawladnimo is a nidaam is ummadan oo Soomaaliyeed mustaqbalkeedii soo socday weeye ma aha wax maanta kaliya jira haddaan maanta khalad kaan qabto aniga jabkayga aan qarsado ay portent inaan wax meesha la joogo ay portent inay nimankan aysan waxba ii dhimin ay portent inay maxaa la dhaacay markay iraalisiiyeen ay iska soo dabagalo ay ogyihiin sida ii soo galeen waa portent garey waa soo raacay maxaa imaanay marka ii sheeg waxa imaanay maxay tahay millions khalad oo kale inay dhacaan ayagu ku dhiiradaan millions khalada inay dhacdo ay ku dhiiradaan laakiin haddaan qabto isna maaloo badadku waa ku dhac isna abbaamii sabab nidaam dawlad waay annaga dhan waxaan nahay alshan waxaan nahay dadku waxaan u nahay role model ba u nahay haddaan maanta waxaan saxnana way saxmaneen hadday maanta waxaan qaldantana way qaldameen haddaad ogolaatid khaladka intaa la eg they think inay cashan fiiri waxyaabaha yaryarkoo aan faraha ugaga qaaday meel la igeeyo meesha la idijiyo foosha xun waxa la igu suubiyey waxaasoo dhan aan faraha ugaga qaaday personal waa anitayda waay intaasan maara suubanay adiga waaye madaxweyne inaad tahay waa is og tahay alxamdulilah kalsoonideedu waa qabtaa wax kastay kugu sameeyaan isaga dulqaado iska dah laakiin markaan sharci inta la khaldo aan u dulqaato dambiyaan galay anna dambiyaan galay ummadda ay ku dhici doontana dambigeeda aan leeyahay haddaanan Soomaaliya runta la isku sheegin oonan wax walba sida saxda ah loo address garaynin horumar ma gaarayno say ku kaaneen madaxweyne xasan sheekh annaga yaa la iigu marmarsiyoonay shabaab lagu jira kana lagu jira ciidankaagii militariga ayaa corruption sameeyeen say ku kaaneen in aniga nin aan shaqo ka qaaday inay inta meel fadhiisiyaan anigii iri waa imaanayaan albaabada layga xirto say ku kaaneen say ku dhacday inta mistake la eg say ku dhici kartaa say ku samaysmi kartaa oo hadhowna inta laga raalisiyo saas ma loola jeedin iyo kan ma loola jeedin iyo keer ma ahayn iyo saanay noqotay iyo no waa ku soo diray qoraalka waa ku soo diray kaama qarin waa ku soo diray message baa ku soo diray aan kuugu cadaynayo waxa jira aan ku leeyahay walaalow ha samaynin ha yeelin sharciga inuu shaqeeyaan rabaa don't do it hatta samaynaysa maxad iigu soo jawaabi weyday way iigu soo jawaabi weyday hatta samaynaysa
markas haddana ul ila ii soo qaato warkaale ma neef ah yani ma neef ila iska dila ush waxaan ku iri maalin waxay war ul maalin ul bay wataan usha ay wataan cid ila dhici karta male ushiina waa la soo qaadanaa maxaa la faa'iiday marka maxaa la faa'iiday faa'iidada la helay maxay tahay waxba lama faa'iidin wax la faa'iiday ma jirto shalay dhan waxaan farataag baa asal moor ikarkariyay wixii igu dhacay dhan waxaan because farataaga imaanay markaan maqlay baa anoo dhan calashan laakiin hatta farataag inuusan imaan baa u malayn ana alxamdulillah because farataagna waxa aan kaga hadlay waa idin sheegay aniga fiir qofna personal attack kuma samaynayo waraba farataag uu soo qalday asagii ummadda waxay u taalaan shacabka Jubbaland u taala iyo ummadda Soomaaliyeed laakiin aniga waxa aan ka hadlay waxay tahay qaabka labada qaab oo la yiri farataag waa u imaanayaaba laba qaab oo sharciyeysan ma ahayn laba qaab oo gal nidaamka dawladnimada ma ahayn midna waxay doorasho inuu sheeganayo inuu calashaan tartan rabo inuu tartamo oo hadda loobi inuu ku jiro uu rabo tartan lama joogo أحمد مدوبة وقت جيسي وعد مالي قف آمن سن قبل كان كذا لجماعة آمن سن أحمد مدوبة إنه مدحوينيه لجماعة آمن سن إنه أحمد مدوبة ما نديت كيس وهرتي مركب موحد دتك أي آمن سنين بطل كنيسة عشان دتك وحيابها قارقط أو وحي هاي إن مركي لا سمي دتك لقى قبضه عشان وحول بمركب أو قلان الدولة لماذا وإنه كل شيء قيسة وروح عن صح مع قف إنه تشوك صلت إيه كرا مدواتها تنكلنا وحي إنه أسجي عروريو ما أرورين كرو وإنا علشان دولة نمدي اللي وأروريا تذكر قرية على سينا الدولة دي أكبر قبطة النظام كله سينا يوحل لجوز سينا يوحل بقول له أجي هاي بق لبضة بوا لبقل دنا إيه إنه يفرتاك الكائن مهمة أنا وحيد هاي والكوربشن كأنت هالك أو إذا مدي تلياشي ملتري الثانية أو بكالكو وكل حشري أما هاسم أنا أصلا ما ندير التلفون وإحنا لما وداجن لكن اللي بكال هاي ستمر والبوحة أصلا أوصه ريدك قصك أصلا أوصه ريا نينك يصادري نور بالدها نينك التلفون كله درو للمدحوينية يشوفته نبت سجود بوها أنا ما وعني منك ماشي تشوجا وعي نينك أوصادري نبت سجود بوها وأنك أوش ساقات وإنه إجابة شيء أوش ساقات ومركان لا هلا يجور هايوي وأنت لايف سوق كله والصومالية هلا يجور هاي سجلت على بقال عيدن بالك هلا يجور هاي محاول ليه والقف كني الواحد اللي بسوا ما الله مركان قلبوا لايف كي قالوا وحيد هوجا ما قشي على هوجا ما وحيد ميك ما قشي سوبندر ما قشي أولنا كم أقانوا لها أولنا كم أقاموا إلها واللايف كوا إسكو إلاليها maxaa yeelay ciidan hadaan ka haysto oo hadda boqol wiil oo dhalinyaro oo ka caraysan waxa igu dhacayaa jira haday inta qabsadaan qof xabad ku dhuftaan ama dhibaato geystaan ma faa'iidan soo kordhiyay ma soo kordhin faa'iido qasaaro un baan soo kordhiyay so I prefer maadaama wadankii nabad yahay oo nabad fiican alxamdulillah doolo waa nabad maadaama uu nabad yahay in aan maxaa la dhahaa aan ciidan qaadanin baan go'aan ku qaatay الحمد لله إلهي ويقولنا شيء محل لها دباتي وما دعين قف دباتي ما شرته علشان المحنة قف دباتي ما شرته قف كي أسرع أنا إجا حنا شيء أمو حلو سمي قف كي إنه إيه اللي يدم عنه حنكون هو أفكار عن كذا لنا دست أيها وحبا سمينا الأفكار كهلا يعني أفكار كهذا حسمين وحبا مركا حاليا بنا وحي تاعي سيدان شرعي كجاري كرنا وايا السعوداني isbeddelka aan raadinayo iyo waxa aan raadinayo siday ku iimaanaysa hadaan ba anigii lafahaygii yaa iska dhigin laahay waxa igu dhacaya haday ciidankayga aan la babadal lahaa maanta bilimi waa babadal lahaa because waa the only way wax lagu saxo qofkaan ma khaldamay qaladkiisa ma ku indha cad yahay hala bedelo lise waa inuu helaa bahalkii waa inuu ogaadaa inuu wax qalday aniga maanta ma xukuma nimankan xasan sheekh maxamuud baa xukuma mahad salaad baa xukuma odawaa baa xukuma aniga ma xukumo nimanka dhibaataynaya Soomaali waa ila yaabanta waxay leedahay madaxweynaha tee maxaa u war madaxweynaha ay waxaan ka qaylaya ma aha ciidan aniga aan leeyahay ma aha ciidan aniga waa ciidan ay dawladda federaalka Soomaaliya leedahay waa taliyaal dawladda federaalka Soomaaliya soo magacaabatay oo farmaajinta weeye waxaan ka qaylinayo
علشان ما كوما دعان أيجي بان وحبي يقول سمين كرين لا لون إني إني بعتيانو ساس وريتان ما لا لون محل عيد كلو أنا عن مسؤولية عن حكومة هوسة إدمانتا سومالي waxa aan 30 hours ba hada fadhiyaa 30 hours ba fadhiyaa 30 hours waxa aan u fadhiyo isna easy 30 hours waxa aan u fadhiyaa ciidan corruption sameeyay waa musuq maasuq meeshii ugu weyneed weeye sameeyay oo siyaasadii interfere ku sameeyay maamulka ku sameeyay oo la jecel sameeyay oo aniga awoodaydii ku yareeyay oo itusay ina dhigi karin madaxweyne mati sameeyay maxaa dhahaa marka haa habreer dunia masjid saayha ila wallahi midkan galabta baqarka wax ku dhigi doon ma santa way macaan ما سنت ويلا سكري بوليس أو حلا نينك بيجا قاتل ميسك إيجا قاتل بوليا وحيا هاي سكفتم بكودا anyway مهمة دمشق تعال وحي تعال واي أي وحان أفر يلا باتك السعود عيسى ور مسير كأنت علقت ور وحان وانسو شقي نفطي دي انصهري عيب ما تشرتميا ور يحيح ما تشرتميا ور وحان أن كدينا أيجي بقى إسلاقهم من كوي واحد سميه ولا ليالا وحنا مقلت العيب لو ما دنتو كوي واحد سميه با اسلق من واسلق منين ولي واسلق منين ما حد سببي شرعي با دهي لا حسن شيخ محمود با دهي لا وا خلدنتين شرعي ciidamada hagayay oo maxkamadda ahayd ba dhehi la waa khaldantiin inay corrupted sameeyeen oo waxa ay sameeyeen ay corruption tahay oo musuq maasuq meesha ugu dambeeyay ay tahay oo ay maxal dhahaa dambi galeen cid og ma la arko cid og ma jirto ay ina la iska socdaa la rabaa la iska lugayo la iska socdo Soomaaliya see ku hagaagi marka Soomaaliya see ku hagaagi waa kan qoriga wata oo maxal dhahaa qorigaas alashan awood siinayo inuu awood yeesho kan sharciga wata uusan awood yeelan horta ilaa hadii laga boqo dawladnimada Soomaaliya inuu ku amaani jiray sharciga markuu qofka madaxweynaha noqdo inuu sharciga la wareego aniga maalinkii koow ay la wareegay waaniga idin sheegay kalmooy khayr Allah siiye inta laakiin warfaagan buu ahaa mar walba warfaayan ka qaylin jiray mar walba warfaayan ka hadana warfaa waa nin wadaada oo markaa la kulanta nin fiicana oo wanaagsan hadduu ku qancin hadduu ku qancin uu ku leeyahay ma ahane marka ma nin maskiinaha oo maskiinimada looga faa'iideystaa mise asaga qayb ka ah ilaahay baa iga og ilaahay weynaay waahidka ah baa iga og Soomaaliya runahan 30 hours is not easy 30 hours inaan fadhiyay oo u fadhiyay hal u fadhiyay is not easy and I can be idin sheegay 100 hours I can do it I think 200 was ku day karaa no problem whatsoever inaan ilaahay weyn wadaalanahay waa rafaadsanahay lugu way xanuunaysa lugtii jugta iga gaartay way igu soo noqotay way danqanaysaa way xanuunaysaa balse saan ku socdaa saan hore ugu socdaa jabkaaga hadaa qarsato adiga qarsaday moqtay saan hore ugu socdaa hadii ciidankii militariga iyo ciidankii maxaa la oran jiray nabad sugidda taliyii nabad sugidda iyo taliyii militariga hadayba mar walba calaashan qaldamayaan ilaa aniga canjeex shaqadii waaba ka qaaday qaladkiisii iyo ma qaldami jirin waxba ma qaban jirin canjeex ani ima hadal xumayn ima dhibaataynaynin waxba iguma haynin laakiin maybe sida aniga aan la ii galay baa loo galo asagiina midha disaster waa iska maxal dhaha I don't know waxaan sheega ma garanayo laakiin qof shaqo qabanaya ma ahayn exactly ku xigeenka maaliyad waa sidoo kale علشان وكل شقة ما هيستو والشقة ما هيستو واحد لو واحد لا حتى هذا شقة إسكدين عشان ياب كتير واحد تاي وريال شقوي محاكم مجعبنتين مرك إيش شاجة وحقتكم مجعبنتين إيش شاجة مرك هدانا وحلا السحن أون شد سحل لو شد كسحل لو استاجن وأنا جه دايم
in wax la sax way sahlantaa laakiin qaabkee loo maraa qaabkee loo marayaa in la wax la sax labaatan dadku waxay igu leeyihiin suubanay maxaa meel u fadhiisanay maxaa war haddaan waxa jira aanan waxbaa jira aan laga hadlin 22 sano energy-gayga dhaqaalahayga waqtigayga dhalinyaranimadayda noloshaydi dawlad Soomaaliyeed inaan ku soo bixi 22 sano inaan ku soo bixiyo at least iska 15 sano si sax ah in aan ku soo bixiyo oo ugu soo bixiyo inaan dalkeena uu horumar gaaro 10 sano markii laga joogay baan daalinaya maxaa noo danay 10 sano markii laga joogay Abqaasim dawladdiisii markii 10 sano laga joogay oo Xasan Sheekh Shariif la magacaabay waa wallahi bilaa alla markaas soo xasuusto waagaasayna sahlanay inta qabsadaan barnaamijkan dood wadaag aan sameeyay waxaa u bixiyay daalinaya maxaa noo dan 5 episode gurigayga waan idinka sheegay inaan gurigayga u gadoonsamay daalinaya maxaa noo dan ah waa daalnaye this is the xalka miyaa program dhan la dhaho oo aan qoraaladan ka diyaarinay inta la agta ilaa xalkeeda ogaa marka hadda isna daal hadda waa finish waa dulownay ee dulinimada si uga kacnaa on dulinimada aan marayna haddana problemka jiro waxa dad cusub oo brand new imaanaya daytinka waxa dhan bayna hadda bilaabmatay war wixii la soo maray meesha maanta la joogo markaas qofkii u nacamleynayaan si ay shaqo u helaan sorry ya layga xanaaqay dadka shaqo si ay u helaan bay waxay u nacamleynayaan qofkii madaxda ahaa meel uusan jirin meel kale geynayaan markay geeyaan qof aanan asagiiba kalsooni qabin muxuu noqonaa marka ilaa qofkan waxaan ba hadda dawladnimada Soomaaliya ama qof dhalinyaro oo shaqo doon oo qasab ay noloshiisa inuu maxal qoyskiisa sugay wixiisa sugay anaga winna like that waxaan soo marnay energy-geena dadka ugu soo shaqeeyay dhaqaaleena ugu soo shaqeeyay still am doing wali waa sameynaya wali shilinkayga waan ku wada dawladnimada ku wada Soomaaliya من أنا أدم بنورشة الدولة الصومالية لا بس أنا 6 سنين ما مشاركة خاتي هذا مركز دم حمر من الله بس هذا 5 سنة عمل استغفر الله ها 5 سنة عمل بمشاركاتي لا 5 سنة والله حتى بمشاركاتي دولة ما قاتي لا 10 سنة نوع أورانكرا لا 10 سنة نوع أورانكرا سديت يتواصلون صح عن شقينا يا واي مركز وادلوني حتى اسنان الدال والله بلا ما وادلوني دلني ما سوى كعنا دلني ماذا سوى كعنا انا مدحوينها oo la idaariyo oo la aqoonsan yahay waa waxa corruption ugu sameynaya military iyo maxaa la dhahaa nabad sugidii baak corruption cunug yar oo nabad sugid ah oo la igu soo diray dhaqaati bilaa halka ii galay waa idin ku dhaay miskiiba iga qaaday markaan ka dhaqaaqa kursigu qaada markaan dhaqaaqa marka yaciska ma dhikr hadaan yacdo 120 wuxuu intuu kula imaado raaxada kaaga qabana hadal ah soo hadalkiisa inta mararka qaar koodna de waxyaabaha aan live u galay wixii aan wana inaan la hadlo mararka qaar kood hadlana afkayga waxaan ka sii dayn ilaahay xalkeeda og yahay عشان bini aadan baa tahay ina la tirsato cunugi ma rabtid laakiin waa imaanay ina la tirsato waxa imaanayso war maxaa ay ka daba dhigay war maxaa kursiga aan ku fadhiyay ula boode war meesha waa meesha ka kacdo because dadka waxay ku farjeynayaan cambi madaxweynaha ka ciirsatay dadkii ragii cambi madaxweynaha ka ciirsatay waa lagu farjeynaa magaalada ragii lagu farjeynaa magaaladii markii lagu farjeeyo waa inay ii soo diraan cunugan oo kale oo aniga iga ciiriya waa in la ii soo diraa waxa aan maray wallahi Soomaali waxa u maleysaan wax yar yar hadda waxa aan maray on maalin walba ka aamuso oo isaga dulqaato oo aan iskaga socdo wallahi billahi tala ana dulqaadkayga iyo samarkayga la yaaba ana dulqaadkayga iyo samarkayga la yaaba laakiin fiiri waa idin ku yiri hadii وقفك قبت خلطك قبته مليون خلط او سو سعدو قبتي كوس قفكاس خلطكاس او قبت ولا ولا اركايا خلطكاس مردما ما دحيو واحد بدن او والله يبلا اطلع ان كف ان جبا ان اسبدل كو كان اركا ciidamo badan oo u qabi jir in sidii la doono dadka laga yeelayo maalinka ay bartaan different ay bartaan sharci cusub iyo rule cusub ay bartaan dhalinyara isoo wacdo igu mahad celisa hadda
marka walaalayaalow waa dulownaye dulnimada isaga qaadna gaalaan haysato adduunyaan isna aba gaala iyo isna aba wada war waa annaga dhexdeena way ii sheeg hadda gaalada anaga haysata ila Soomaaliye 24 saac we wanna blame outsider inaan blame garayna annaga isma blame garaynayna qof walba kula soo hadlay wuxuu ku leeyahay wax la qaban kara male wadanka wax laga qaban kara male wadanka waa la wada haystaa war waa la wada haystaa maxay tahay inaan cunadan wabigaas qulqulaya inaan beeranaan in laga haystaa yaana haystaa kuwan ba hadda haystee kuwan baan haystee waa kana dhulkiya aniga waxaan imaaday grassroots inaan ka soo bilaabaa imide waa ka soo tagay federaalkiye energy-gayga iyo lafayga iyo noloshayda waxaan u imaaday halkaas oo shilinkayga aan ku bixinayaaye ninka shilinkayga anoo bixin la ka xishoon la damirkiisa dhila war gabadhan qarashkeeda ka baxay damir xumadaada isku xishood nin kale oo dhahaya ma jirto nin kale oo Soomaaliyeed oo dhahaya wallahi billahi tallahi waxaan Soomaali rageedu waa I'm sorry ani mi inaan feminist dadka oo ragga wax ka sheega mi laakiin waa fact ilaaha idinku dhaariyay nin dhihila war wuxuu sheegay xunto qashinka ah gabadha energy-geeda iyo shilinkeeda iyo nafti ka dhacaysa how dara u dhibaataynaysan ma dhici karto nin saa dhihi kara sabab maxay ragii Soomaaliyeed ku kala baqayaan waa la duloobay kolba waa loo jeedaaye maxay waa loo nacamlayna asagoo ninka kale ka qatar umad wax uu kaga baahan yahay aysan jirin buu isaga nacamlayna ha maxay samaysay ma taqaanin miya yar baa habeen dhantaysa wuxuu ugu yiraahday walaalay dabeecad wanaagsan baa leedahay waa laga kala cararay dadkii oo dhan maxay waa beente nin raba inuu mad iga raali ahaado yahay ilinta ma raba inaan ilmeeyo ciilka iga batay nin raba inuu maxaa la dhahaa dadka duleeyo baa wixii uu samaysanay iyo wixii uu cunay markii yac laga dhaho ama uu arka inuu uriyo inay waxaan yac ka dhaxmayso buu adigii wuxuu rabaa inuu magacyo ku bixiyo I don't care ba ku yiraahdo waxa ay way saqana intaas adduunyada ku soo noolaa alxamdulillah I know my way garanayaan kalsooni waa isku qabaan kan caayay waxba walba inuu iga eriyado wuxuu ii caayay aniga waa inta qabsada ma caayee inta qabsada umada dhan waxay yiin kuma tiriyeen because uma jeeda aniga inaan saga caaya wax ka sheegay aniga hadaan wax sheegay dadku waxaan ku dhahaa aniga qof hadaan gadaal ka xamanayo waa ii dhacan lahayd hadaan wax sheegayo waa waxaan hadaan wax sheegayo saan public qofkii ila fadhiyaan waxa dhihi kara alxamdulillah ilaahay wuxuu isiiyay keeb ilaahay wuxuu isiiyay sida sadaan qofka kara runtii inaan sheegi kara fiican intaan gadaal ka xaman lahaa inta halkaan dhimaad inaan dhihi karo waxaana igu samaysay iga daa hadaan xataa asagii arkayn which is I'm trying my best inaan cirdiga qofka iyo aanan gaarin sharaftiisa iyo karaamadiisa aanan gaarin baa isku taxalujiyaa marka how long bay soconaysaa oon marmarsiyo ku jirayna oon marmarsiyo iyo gaalaan haysata maxaa la ajaanib nafti naga qabtay isaana loo galay kana loo galay war hoy waay annaga wax isku galayna annaga isbaabiinayna annaga samaynay inay shabaab ismaysay boqod la xasday weeye dad la ciilay weeye dadka kala ha imaadaan oo mabda waxa wata ha imaadaan laakiin dadka raacay waa dad la ciilay common sense markaan isticmaalno baan horumar gaaraynaa markaan dhahno hadda waxyaabaha aniga hadda aan wada waxay tahay dadka in la soo celin karo dadka calaashan xagga galay oo ciilka u galay calaashan in loo fidin karo inay soo laabtaan maxay yeelay qofkani dhibaata hortiisa lagu sameeyay waa la isdhibaateeyay kii markaas wali wuxuu rabaa nin inuu dawladnimadii ku sameeyo ama uu dhex sameeyo buu rabaa waxaan waxay la tahay fiir waxaan waxay la tahay basiid bay la tahay waxa hadda aniga ka hadlayo waaba yaaban yihiin banaagtan kibirtay maxay tahay leeyihiin waxaan ay ka qadlayso maxay tahay because dad baa la qowracay dad baa oo maxaa halkaan gaarsiiyay maxaa halkaan gaarsiiyay nin weyn weey ninka hadda ay idin leeyahay kuraastu iga gurtaa I think wala meequu jira magaciisi waa ka qaaday taageer 20 xogaa waa gaaray sama 28 waa gaaray wala 28 jir ninka kuraasta iga aruursanay bal nin raga marka lagu dhaho orado kuraasta aruurso bal see la iigu dhihi karaa ani see la ii dhihi karaa madaxweynaha kuraasta ka aruurso
madaxweynaha miiska ka aruurso madaxweynaha waxa see la ii dhigi karaa علشان nin weyn baa ahaye inaan isku yaxyaxo oo aan dhaho ragga kale kuma dhacaan wiilasha kale oo meesha jooga kuma dhacaan maba ka suurtooda inay sameeyaan 28 jir inuu علشان maxaa khaldan marka waa inaan dulownay halkaas ka garanaysan inaan dulownay raggii kale to qof dhig kara war dayuuska kale ta liver allah faraha ka qad horta ilmaha yar waa dhahan markay u tagaan faraha waxa sameynaysa ibdrada jooj ma dhici karto dadku waa la soo diray maskiinka waa la soo diray maskiinka maxay tahay sidee loo soo diray ma sharci waa lagu soo diray soo suuq madow maaha mumaya dhaho mumaya dhaho marka waan karay sidii dari la karkariyay baa u qarxi raba waan karay inaan waxaan u imid halkan uu sharcigayga shaqeeyo garbaharay waa la igu soo dhaariyay doolow inuu sharcigayga ku shaqeeyo waan u imid oo sharciga shaqeynayaan aniga shaqa ayaga ka qaadismaba lahayne waxa ay sharciga shaqeynaa inaan howlgal samayno inaan iska celino maxaa la dhahaa qaladaadka dawladda federaalka nagu samaynayso marka waa iyadii ay jirtay arrintii la casumayay axmed madoobiye dowlad goboleedka la soo casumayay inaan iska dhicin karno oon sharciyada aan soo saarno iyo waxa aan samaysana aan isaga dhicin karno oo shirkaas aan rabay shirkii waaba ka dhacay aan rabay inaan ka dhiga garbaharay baan u imid ilaaha idinku dhaariye علشان waxa loo baahan yahay aqli iyo maskax loo baahan yahay shirkii ma sameeynin waxba iskama dhicin oo anayba waagi i wareeriyeen oo inta i wareeriyeen ilaahay baa ogaaba oo waaba hilmaamay xataa mar dambe aan xasuustay lacagtii la siiyay kaad mar dambe illa fiiri waxa leenahay way wax la qabsan la'nahay because waxa wax la qabsan la'nahay adoo wanaag u socda baa dab inta lagu shidaa jihadii wanaag laga jeedinaa jaqalda lagu jeedinaa soo adoo waxaad arkaysaa dabaalanaysid wax aan unnecessary ahayd oo u baahnayn ba inaad waqtigaaga geliso oo time-kaaga geliso adoo dhex dabaalanay maxaa la fadhiistay hadda maxaa la fadhiistay maalin walba jihada u socda jaha kala la qaadsiya waa fakaraysaa waxa leedahay waxaan samaynaysaa bari ku hawlgal baridii marka isdhaado hawlgal ilaa hawsh waa lagu leeyahay waxa arkaysaa adigoo jaha kala lagu saaray marka waan kaligay maaha waa dawladnimada Soomaaliya oo dhan xasan sheekh ay ku dhacdaa farmaajo ay ku dhici jirtay ra'iis xamse ay ku dhacdaa nin walba marka dadka laba ay u kala baxaan markay saa dhacdo dadka laba ay kala noqdaan mid gibab gareeya oo inta iska aamusa dhaha time-ka wax wadaaya oo timing علشان waqtiga wax wadaya adiga iska aamus waxa qaban karta ilaa ma jirtee markuu maalin walba asagoo inta u socdo wanaag iyo jaaf fiican inta samaystay علشان بوق iyo unnecessary wax ah oo loo dirsan hatta dadku way curiyaan xaaladda way abuuraan waa la curiyaa isku dhaca waa la curiyaa maxaa la dhahaa buuqa waa la curiyaa si qofkan loo mashquuliyo oo waxaan loogu mashquuliyo markuu qofkii ku mashquulo maxaa la dhahaa disasterkan iyo dhibkan iyo khilaafkan uu ku mashquulo wax qabadkii waa tagay wax qabad ma jiro wax qabadku waa u dhamaatay marka darsato dadka siyaasiyiinta inta sano la soo shaqeynayeen laba u kala baxaan mid ku dhaxluma oo soo u dhaxdabaalanay oo buuqay ku dhaxluma iyo mid inuu wax sax u istaaga oo inuu disaster ka raacin inta fadhiisa inuu wax sax u istaaga markuu wax sax anaga sheekh wallahi inaan sheekh shariif iska amaanayno wallahi billah marka hadda gadaal u laab